حقيقة عدالة وشيء كليه رجل ودولة نمد وشيء قفل بطابنا يا حضرت عاري اللي شوكته يعني كجوري الدار استيل وضع عدالة بالباقي هذه عدالة اللي رواق وارق وسكديني رواق بعدين أنا يعني رواق حتى ولا جبت بعدين عدالة اللي تتكلم يسوي وبهدينا الماشى فلذا كشف قيس هل علده تشتاج عنصر كصومالي وحكومة تلسين الدق وحلينا حتى يسوي عدالة هني لها marka hadda uu dacwad iyo ka shaqeynaya wuxuu soo gudbisto inta uu taagan yahay baa dhibso wuxuu isku dayaa shortcut inuu sameeyo meeshuu taagan meel ka dhow wax ka gaaro waa mushkilad haysata jinsiga Soomaaliga ilaa mararka qaarkood garoomada markay marayaan ilaa dawladaha qaarkood meelaha hadda garoomada wax laga qaato hadduu Soomaaliya qofka jooga baasaboorka uu iska dhigay sababtoo uu xoog yahay baasaboorka Soomaaliga qofkii lahaa وجيبك قاعد تقليني تصامر كواحد كيرس إنه باسبور كان يردقه حال دقيقة حتى تذكر صفقة كهرباء أنت قد بيان مسؤول كم عدالتنا وقدومي هذا وكعلى على يحرلاليه وإبل حق إليه نصيه وزير كان ليه وزير كورت الدستور كان راعوه الدستور كان ليه وإنه حنم كل غيره لكن عدالة كل هذين نقطة عدالة سيء بالله الله لكن وعدالة ما سوى قشوا سياسة شعبكم الله لكن هذين سياسة قليل أما النقالة أنا وحيد كل هاي تغير الدولة أنت بدل مهلي صوت هذا الله ما كان شهية وحلاقة شقية انستيوشن النقالة هي اللي هي واحد سياسة صامين تدق كل هي هذا بيس كنا وعدالة شيء بيس كأصل كي هذه يلا لوايو وحكى لأردن وهباء منثور وحش قيل ياكم أجر لكن وح إنه مركا أنا ركينه أما ضدك مصالح ضد كذا حركان وحكذا حرادين يعني عدالة دو هذا غامضة مركا تعالى الله قفك سياسي صومالي هذا المسؤولية صارني شيء مهم شرير عدالة وقفوا اللي بإنه عدالة هراي أي تاي واحد كلية قف كاس أنه قنايا أما يسوي مامك سياجينيا أما حق صار أنه قنايا أما لو حسوسا كريا وشيء كلية يقف اللي يدري بكريا إن على السياسة لين والله حرالية وعدالة السياسة بقولي كرت وحيالها الله يسكوها يستعد كم doodaha hadda markaan NCC ku doodayn cadaalad waxyaalahan ka hadalna ku jirta sababta aad hadii la soo marana si uu waxa lagu soo marayaa qodobo la qorqoray mooyee ma aha waxyaalaha aad dadku u daneeyaan siyaasadda saameynta togan iyo mid toosan midna kula ma aha sida daraadeed cadaaladdu waxay u baahan tahay wada shaqaynteeda iyo isku xidhnaanteeda iyo isku waxtarkeeda intuba inay noqdaan wax muhiim haddii cadaaladda aan laga wada shaqaynin haddaan dhaqaalo loo samaynin haddaan la dhisin maalin dhowd baa wareysanayo maxkamaddii xeebta kusii jeeday halkii baa weli bahda cadaalad oo dhan ay ku shaqaysaa siday ii sheegeen mar baan waanu sheegay bakhaar baan ku lahaa dhabarkooda yani ma aha waxa fasaadku hadda wax bilowday marka waxaan xusuusanayaa maalin baan dad la qabanayo oo gadh waaweyn oo tusbaxyo wataan oo maxay ahaayeen waxaa la waa kuwa shahaado zuurka meesha loo kiraysto dembigu ka weyn yahay lacagta ka badan tahay waa la xifdisiin waa la qaybsiin uu dhaaran uu xira furi wax walba mari garku intaasu leeyahay tusbax baa qoorta u suran waxyaalahan soo maray yani waa wax dhib badan oo taabashada ay leedahay ee xoog badan tahay laakiin waxaa asala haddaan annagu hufnaano oo gacmaha qolada cadaaladda laftirkooda waxaa la yidhaahdaa moogtay qofkan xaakimka qaadiga hadduu gaajaysan waxba xukumi karaa
haddii dabka hadda reerkiisa ayna shidnayn oo ay duruuftu cala turaab uu yahay inteen leeg buu xugun qaadi karaa waa inuu iska taga soo maaha ilaa soomaali baan nawaanognahay oo isagana fariimaha u imanaya iyo sida loo qaabilay sida loo soo dhaweynayo cuncunka la raadinaya waan garanaynaa waa saamayn soo maha toos markaa bal aan ka wada shaqayno dowlad dhexe iyo kuwo stateba aan la mid dhigno askariga iyo qolada wasaaradaha maaliyadaha u shaqeeya sida looga walbahaaro hadda wasaaradda maaliyadda oo kale shaqaalaheeda meel walbay joogaan aad baa looga taxadiraa maxaa la leeyahay dhaqaalay qaadaan markaa waxaa ugu jirta wal caamiliin calayha oo waxay shaqeeyaan inay wax ka helaanoo faraha dufan loogu yeelaa waxaa ugu mudan dufan in loo yeelo waa cadaaladda qofkaan cadaaladda inuu ka kaaftoomo inay baahi kale ku timaado isagaa ugu mudan aan heerarkay tahayba intii laga wada shaqeeyo war cadaaladda guryo kala duwanna ha loo dhiso garsoorku shaqada uu leeyahayna ha loo daayo farahana saliid ha loo mariyo iyagana marka hore yaan lagu keenin garab iyo hebel baa wata iyo ama waxiga fujiyahay ha noqoto qofka aqoontiisu marka aqoonta lagu keenana marka dambe nasaahadiisa ha la fiiriyo hufnaantiisu waxay tahay haddana oo iyada laftirkeeda qofku markuu shaqada qalan laftirkeeda ikhtibaar bay u noqonaysaa inay imtixaan u noqotee in la ogaado qofkani shaqada wuu yaqaanaaye hufnaantiisa iyo nasaahadiisu waa sidee oo looga shaqeeyo soomaaliya waa ku binjaldatina ah kuwa hadda shabaabka ah ee nala dagaalamaya oo adiga luqadii kula oo diin kula sheeganaya oo reerihii kula dhexgelaya oo qabaa'ilkii isku diraya oo wax walba saameyn ku yeelanaya waxay gaadheen inay dadka iyagu yidhahdaan xakan baan idiin noqonayna usoo xuguntama maxay xuguntamayaan waxaa u xuguntamayaana waxay xukumaani laba walba meeshii la iskaga diri kara iskaga dirayaan xidhiidh bay samaynayaanoo dadkii waxay u adeegsanayeen aaladeeda ilaa ciidankii iyo cid walba ikhtiraacd ay maanta ku sameyn maanta waxaa la ii sheegayay xabsiga weerarka ka dhacay dadka fulinaya inay ahaan kuwii maxaabiista ah ee gudaha ku jiray iskamayna imanin waxaan inay gudaha iska soo gasho waa laga shaqaynaya baabuurka qaraxee magaalooyinka soo gelaya haddaynan cidillo ku lahayn ma soo gelayo waxaa kaaga dana waxay bixinayaan yarideeda iyo say u isticmaalayaan haddii markaa ay noqoto waxaasoo dhan waxaan kaga gudbi karraa cadaaladdu ama tu ciidan ha noqoto garsoorku ama mid shicib ha noqdo ama cadaaladda guud ahaanba ha noqotee haddaynaan iyada isku dayin in la awoodeeyo oo la xoogeeyo oo say ku shaqayn lahayd iyo nasaahadeeda iyo tabarteeda iyo waxay u baahan tahay aan dowladnimada looga shaqeyn oo culayska la gelinayo hadda shabaabka ilaa gudihiibu kusii jirayaaye cadaaladda lafteeda iyo bahdi intii la geliyo aan iyaga laftooda ayna dagaalka qaybta looga baahanya ayna ka gelin waan ku lugu-ayna waa jugjug meeshaada joog bay noqonaysaa aada iyo aada waxaan ugu talinayaa ugu dardaarmayaa shaqada la qabanayaa inay noqoto wax qofku isaga muuqaalkiisa markaa ku eg inayna noqonin inay noqoto qof waliba wux uu ka tegayay iyo xisaabta lala xisaabtamaya inayn ahayn midda uu markaa isagu joogeen mid aakhiradiisa lagala xisaabtamayo inay qayb ka tahay cadaaladdu waa shayga ugu muhiimsan ee qof walba uu mudan yahay inuu helo inuu xaqa uu qofku helo ee ugu muhiimsan waa midka cadaaladda telefoonkayga dad badan ba haysta maalin walba islaam baa fariin iisoo duubaysa walacalla dadku say wax u sheegayaan xataa inayna u noqonin laakiin qof waliba markaas wuxuu kuu soo tirinayaa waxaasaa igu dhacay saasaan ahay saasaan ahay saasaan ahay waa jawaabo kugu adkaanaya markaa haddaad tiraa maanta o dhan waan ka jawaabayaa qof walba waan raadinaya waa iska cuslaanaysa markaasay noqon inaan u yeedho oo idhaa guddoomiyihii ama idhaa war waxaan see u jirtaa iyo maxaa dhacayo marka laguu sheegay la idhaa kana saasuu aha kana saasuu aha oo haddee dadka soomaaliga waa kaan ku leeyahay baasaboorka oo wato inuu sugaa ku adag kanna markuu baasaboorkaa ogaado wuxuu ka qaadanayaa xooluu weydiisanaya wuxuu ogyahay inuuna sugi karayn markaasaa la yaraa 5 daqiiqa qofka soomaaliga lugaha kuma taagnaan karo hadduu dacwada keensanaa waxaan odhan lahaa garsoorku xataa intay dib ugu noqdaan dadka dacwadaha wata kuwa degdega u socda oo dhan
إنه بالدعوة الدبلي يعني أنت وحكنا ليانه لو جاني واحد الدجينه بلغنا كالف سينا كجور رأي نسكت دينه وزير آدي بدل ما سنتين أديك كرسوك كليا هي صاحبة ما شفنيها هذا ما هو فرح صناعي حجارة وزارة عدالة الدين تي كرسوك علينا كوان ده بروزيا بكو غيني سواء تيتا الخلوج شوية بطل مركا ولا بينقطوا آدي ما هو فرح صناعي شركة لو فريها وأنا ربايني هيدا كلا شقين يا سيف عن الله شقيه وحكى صباحيا يا أقول كرسي إنه هالنقطة هفنان ينزاها إلا هنا عدالة إياه بالدولة حلفت الكاب لما هي الدولة دماغه إن جرسور كي عدالة الله سيا باهدا منان تيليه وأنا نقولن وإننا نقطة دم بدن كمان هذا حسن معلم دولة الحياة الدولة استديد يبارك الله فينا أنت الدستور كان هو طاي عدالة واسكت عطاها مركب أنا عدالة كهر مرينا الدستور أو لقبك دستور كهذي لنا هلا حجفه هذا واحد الموت الدستور هذا الدستور كهذا هذا الدستور كان كذا ما أنت له وروريتشرية عدالة لا جماعة شركة وينوفر هذه ما سنتي